بسم الله الرحمن الرحيم أنا قم مقعيقو يهي جولغا حرسي داهر حاشي أهنا ننا فاهو داوعة أفر شيرنا اللي يديرو اسبتالك أفر شير أنقلي لولكاس أوغيس أن أغتقني أحمد محمد إسلام ويري سدحدنن أو دقم أو جوكته مامولك هوسة جوكته أي كليهن محمد ناصر يتمجل عير رشيد مدولو ويري لولكاس وخوبية حمالك أوليه نمانك حمالك ومساكينتها إليه oo biyaan teerku ka dhisay way tageen waa soo hubiyeen wuxuu yiri dhulka waxa iskale xamaaliga iskale dhulka yaa iskale xamaaliga iskale saddex jeer buu ku celi markuu ku celiyay wuxuu yiri maxay u baahan yihiin in la xaaqo waxa la umado nin intii marxad u qabsada waxa waaye soo hubiyay markuu yiri waxa qabay way tageen ayaga ayaa la wareegay dhulkii waxay kula wareegeen waxay ka gateen niman ganacsadayaal waxaan mar saddexaad ka codsanaynaa Axmed Maxamed Islaan nimankaas uu noo diray oo dhulkayagii intay hadda daraadna ka xeeyeen misana haaf ay cabireen oo intii kale ay ganacsadayaal ka gadeen oo ay ka iibsheen oo qaar waliba goboladaas Itoobiya jira ay ka iibiyeen wasiirra oo ah dawladda Itoobiya ay waliba qaar ka iibsheen inay kala bar dhulkii yiraahdeen shala 60 iyo 8 boos asagoo 30 baanu idin siinayna oo aanu nir war annaga 30 nooma qalanto dhulkayaga ma masaajid baa laga dhisayaa ma waxa laga dhisayaa dan guud oo ma waxa laga dhisayaa isbitaal inta aad naga reebteen waxba idin kama gelin baa leeyahay intaas ma qaadateen baa leeyahay haddana waxay rabaan inay inta misana ku noqdaan madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha ay yiraahdaan dhulkii nimankii waa diiday si ay ayagu dhulka ula wareegaan waxaan kaloo sheegayaa inta aanu soo marnay oo dib dhulkaas ka soo marnay 7 sano oo ay haysatay dawladdan Jubbaland inta nimankaasuna dhibeen oo ay wax noo geysteen boqolaal waa ka badanta waxaanu ka codsanaynaa mar labaad Axmed Maxamed Islaan inuu nimanka magafayaasha naga qabto oo saddexda oo ummadda Soomaaliyeed intaas nagu arkayso nagu fiirsanayso oo aanu nahay dad xamaaliya oo aanan xoolo haysan oo aanan hanti kale haysan oo meeshan buulasha carruurta uga dhisan lahayn ay tahay ayaan wada sugayna way laga ooydoon oo ceelashani ay cabahayaan booyada ay ka gadaan qaarkood oo ceelashayadii kulli la dhacay oo ayagu ay mas'uul ka yihiin waxaan ka codsanaynaa Axmed Maxamed Islaan inuu dhulkaas nooga celiyo saddexdaas nin oo magafaa waxa marxaati ka ah oo ummadaas aan mar walba u tagnaa nimankan la yiraahdo xildhibaanada oo dawladda Jubbaland kulli waana wada og yihiin waxaan oo gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka saddexaad oo baarlamaanka waxaan oo wasiirka arrimaha gudaha waxaan oo wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta waxaan codsanaynaa inaanu nahay dad maata ah oo reer Jubbaland oo xaq Jubbaland ku leh waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa waraaba qandhaday mushaari masugaa usuuna ma an ka fadhiyo annagii waxaan laga dhiga waraabayaal qandhaday baa laga dhiga waxaanu ka codsanaynaa dawladdeena Jubbaland inay dhulkaas nooga qabato saddexdaas nin oo magafayaasha oo aanu ka xamaalan weynay oo aanu nahay dad masaakiin oo 14 qabiil oo Soomaaliyeed ah oo aanan qabiil ahayn aanu nahay Soomaali isbiirsatay oo aanan ahayn dad yaani dadka jifada isu aruursada aanu nahay Soomaali raas casir iyo raas Gambooni aanu ku qaybsanahay oo aanu nahay dad Jubbaland oo aanu nahay dad maata ah oo aanu waxaan ka codsanaynaa mar labaad Axmed Maxamed Islaan inuu nimankan ugu dhowran oo ay soo arkaan dhulku meesha uu ku yaalo wadaadada culimada masaajidyada madaxweynaha wasiirka baarlamaankeena Jubbaland inay soo arkaan dhulka hubiyaan nimankaas mar walba ay leeyihiin yaani dhulkii nimankii waa soo cabirno waanu siino way diideen waxaanu diidnay ma jirto hal soo hubiyo Axmed Islaan oo noo dir dad mas'uuliyiin ha noo dir nimankan magafayaal baan u naqaana niman markaan u tagna hadda meel lagu leexanayo
annagu lama dacwoon karno dollar ma haysano waxaan wax ku furtaamayna ma haysano wax ayaga waxay rabaan jeebka ay ku ritaan oo dhulkeena ku dhacaan madaxweynuhu wuxuu og yahay dhulka yaga cidda musuq ku wata musuq iyo maasuq waan ka cararaynaa musuq iyo maasuq muxuu yahay dhulkaas madaxweynaha Jubbaland baa wuxuu u diray gudoomiyaha degmada xogayaha dawladda hoose taliyaha booliska wuxuu yiri dhulka nimanka iskaashatada ay ka cabanayaan soo hubiya ribadkana igu soo celiyay dhulkii bay soo hubiyeen dhulkii markay soo hubiyeen ribadkii bay soo celiyeen madaxweynaha way noo yeereen annagana madaxweynahan iskula laaban madaxweynuhu 3 jeer wuxuu su'aalay dhulka yaa iskale dhulka waxa iskale mudane madaxweyne iskaashatada baale darbi baa uga wareegsan biyaanateer oo 1 mitir ceelal baa uga qodan biyaanateerkoodii dhexdiisii baana la degay markii biyaanateerka dhexdiisii la degay wuxuu u baahan yahay in loo banneeyo ku wareejiyo askartan ka cabanaynana waraaqay ku qoran yihiin magacyadoodu baa maxamed naasir lagu wareejiyay markii lagu wareejiyay nimankii maalinkaas madaxweynuhu lagu soo daray maalinkii bay dagaal bilaabeen oo dagaal lagu bilaabay live-ka maanta aan ku jiro live-kii ka horreeyay baa madaxweynuhu wuxuu ka horreeyay 2 sano ka hor inaan dhulkiina la ku wareejin uu isugu yeero wuxuu nimankan hadlayo Facebook ka hadlaya dhulka hadda ka hor aad soo hubiseen oo ayagu ay lahaayeen danta xageebaad geysay mee dhulkii madaxweyne hebel baadiiday waa nala xiray madaxweynuhu yiri yaan la xirin baa nala xiray maxamed naasir oo Nairobi joogaan xiray markaan maxamed naasir u tagnay madaxweynaha ka war helay madaxweynuhuna asagana soo daayay madaxweynuhu hadduu soo daayay 16 jeer buu dhulka ribood ka bixiyay dubina waxa yaga in loo baneeyo oo nala ku wareejiyo uu madaxweynuhu oo ribood ka bixiyay 16 madaxweynuhu bixiyana wax ribood ah oo laga yeelay oo nimankii fulinta lahaa ay yeeleen ma jiraan dhulka iyaga oo lagu banaanaayay maxamed naasir iyo gudoomiyaha degmada Rashiid Maduulow baa dadka hadda degan dajiyay waraaqaha safarlooga ah dadka la siiyana ayaga u jaray hadda u jareen meeshii joogay dheheen madaxweynaha Jubbaland waxay u sheegeen meeshii dad badan oo Soomaaliyeed inay degeen xal inaysan ka maarmay kiiska dhulka ku fadhigana waxa wada Rashiid Maduulow iyo maxamed naasir iyo gudoomiyaha degmada waxaan nahay muwaadiniin Soomaaliyeed mucaarad ma nihin dad wuxuu leeyahay ma goobayn waxaan goobaynaa wax anagu aan leenahay hantidayadii ka muuqato biyaanateerka aad arkaysaan ummadda Soomaaliyeed ay meel walba aad joogtaan iyo Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland maxkamad ka sarreysay inaysan jirin baan u maleynaya biyaanateerka adinka aad u jeedaan oo binadayadii iyo qarashkayga iyo hantidayadii saaran tahay la yiri shala dhexda lagu dhufanaya waxa la diiday in la hadlo maadaama aan muwaadiniin nahay madaxweynuhu amar bixiyay ilaahay baana noo qasbay oo karansiiyay in dhulka yaga uu amar ka bixiyo amarku bixiyay hadii madaxweynuhu amar bixiyay in loo yeero ummad shacab ahaanu nahay masaakiina cabashadoodu meel walba ay taalo madaxweynihii bahalka la yiraahdo amarku bixiyay laanta buulo abliko nin xukuma oo laan xukuma baa saddexdoodu intay tashadeen noo direero wuxuu dhaheen xamaaliga isugu yeera ayagaana awle amrin noo aho intay noo yeeraan hadii amar madaxweynuhu ka soo baxay intay noo yeeraan war dhulkiini baa leedii xaqayaayo madaxweynaha amar bixiyay maxaan ka yeelaa wayna yaseen nama qadarin shala markaan meesha tagnana waxay nagu dhaheen gashaanti amiska lagu meheriya gashaanti amiska lagu meheriya wixii la idin garto baad qaadanaysaa waxa inta uu heliya oo aan ka hadlayaa annagu muwaadiniin baan nahay mucaarad ma nihin waxaan nahay dad Soomaaliyeed Rashiid Maduulow ninka la yiraahdo xogayaha dawladda hoose baa maal dhaweyto noo yeeray xafiiskiisu ugu yeeray odayaalba u yeeray wuxuu yiri ninkan waa nin leelkasa kala ila arka odayaalow waxaan rabnaa
dhul halka ay ku leeyihiin inaanu xaaqno aanu xaaqna inay wax ogolaadaan baan rabnaa rashiid odayaasha aad markhaatiga maanta ka dhigatay ayagoo Soomaaliya baan kugula kalsoonahan ku rashiid waxaan ku yiri dhulkan yaa leh rashiid wuxuu yiri dhulka adinka leh dhulka maxaad ka rabtaan baan ku yiri dhulka wax ogolaadu yiri waan gorgortanay odayaal magaalada jooga Kismaayood baan markhaati ka dhulka waxaan ka ogolanay 17 boos rashiid wax saxiixa maana kala qaadin heshiis baan gacanta isku saar intii rashiid heshiiskii ka baxay rashiid intuu heshiiskii ka baxay buu wuxuu u tagay ninka la yiraahdo Maxamed Naasir iyo gudoomiyaha degmada waxay soo gooyeen 30 boos dhulka iyaga in la ka siiyo biyaanateerka ummadda Soomaaliyeed u jeedo oo hantidayadii gashay shala asagoo banaana ayaga madaxweynaha u keenay inaan anagu leenahay biyaanateerka aan marsanay oo ceelasha nooga qodan anagu aan leenahay rashiid wuxuu ii sheegay dhulku shala soo hubiyay oo madaxweynaha hor keenay nin wasiir ka ah dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inuu boosas asagu uga gaday xamaaligana uu kala munaashaqo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya nin wasiir ka ah wasiirka maaliyadda dhulka yagana loo gaday markay inta ka soo gudubto madaxweynaha yaga waxaan ka filaynaa amarka maskaxdiisa iyo madaxweynenimadiisa iyo mas'uuliyadiisa buu ku gaaray asaga naga naxay cid kale oo saaka asaga aan ahayn oo Jubbaland ka hayna ma jiraan waxaan codsanaynaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan gudoomiyaasha baarlamaanka xildhibaanada Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland wasiirrada dhan waxa la wixii waxa garada oo reer Jubbaland dhulka dhan baaba madaxweyne intuu naga qaaday iska tagana dhihi kara Jubbaland oo dhan ay naga qaadi karaa qof kasta wax garada culimada Jubbaland inay arkaan waxa la kala barayo waxa aan ka cabanayno waxa meesha yaala annaga dhulkaygu waa wareegsan yahay dadka ummadda Soomaaliyeed ama reer Jubbaland baan ka banaaskana dhul qarash iyo hanti u gashay oo wareegsan dhexdiisa biyaanateekii baa dhexda lagu dhufanayaa 30 boos baan reer ninkan u goynaya kiiskana anaa leh oo dadkan meesha dajiyay dhulkana shalay anaa soo hubiyay oo madaxweynaha u keenay nimankaanu inay leeyihiin iskaashatada waxaan rabnaa qof kasto caqliga saaxiib u ah oo wax garada oo islaam waa ku goona cilmu awdiinka Jubbaland inay soo farageliyaan odayaasha dhaqanku soo farageliyaan xildhibaanada Jubbaland waa codsi xildhibaanada Jubbaland ay soo farageliyaan wasiirradu Jubbaland ay soo farageliyaan wax garadka iyo oqaasha iyo odayaasha iyo madaxweynaha intuba ay arkaan waxa meesha yaal dadka binada meesha ka dhistay oo ganacsatada annagu meesha ugamaan dhisin inta meesha ka dhisatay mid aan u tagin ma jiro mid walba waxaan nidhi in adeero dhulku waa dhulka wareegsan annaga leh hanaga dhisan oo markhaati cad hanaga dhisan madaxweynaha amar ka soo saaray annaga iskale oo dhulkaas annaga iskale in adeero hanaga dhisan nin walba qori afkiisa ku dhista waraaqaha lagu dhisay meesha iyo ciidanka dhisay inna Maxamed Naasir baa mas'uul ka ah waraaqahana Rashiid Madow waa jiray madaxweynaha iyaga khayr Allah siiyo maalin walba ribood buu bixiyaa wuxuu yiraahdaa dhulka la dumiyo nimankii dhisay shalana iyagu soo hubiyay buu ku celiyay amar waxaan rabaa waxa meesha yaalo dadka aan isku haysano shala galab shala dhulka qayb kamida markii la cabiray shala galab ganacsatadii dhulka tagtay dhulka gadatay baa isugu tagtay
way shireen shirka waxaa hogaaminayay nin laanta shirkadda sharciyeynta dhulka ka mid ah oo la yidhaahdo Bursade waxay dhaheen si dhulka dhisan nala kugu heliyo dhulka dhisan si nala kugu heliyo lacagaan isku duwaynaa nin kastoo meesha boos ku leh ninkii laba boos ku leh waxaa laga rabaa 4,000 oo lacag nus boos ninkii ku lehna 1,000 baa laga rabaa lacagtaa waxaan ku difaacaynaa dhulka inta la cabiray maahan inta kale si aan loo dibin oo waxaan haysanaa dadna difaaca waxaan rabaa anugu waxaan ahay muwaadin reer Jubbaland mucaarad ma ah Soomaali waana laakiin mucaarad ma ah waxaan ku camanayo waxa aad u jeedaan oo YouTube-ka yaala oo baraha bulshada yaala oo live-ka yaala inaan cid xoolo ka doonayo ma inaan cid dhacayo ma inaan cid dhibaataynayo ma inaan qof gurigiisa ugu dhacay ma waxaan ku noolahay nolol fool xun oo qofka bini'aadanka uu sano dul qaadan karay nolosha aan ku noolahay waxa weeye laamiga Kismaayo ma dhex mari karo inama gaari la igu dhufto walayahan gaagureeyo ama naftaydu ay khatar gasho ama la dhibaateeyo si aan uga samraantidaydo waxaan codsanayaa waan madaxweynaha mar saddexaad waa markii saddexaad waan live-ka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa kaambeynta doorashada wax ka wadi waan jeclaa maan hadlin intaan waxaan lahaa dawladdu ha isbedesho dadku waxa noqdeen horumarka Jubbaland niniga jecel ma jiro inaan live galo waxay igu kalifay Rashiid Madowlow iyo Maxamed Naasir iyo gudoomiyaha degmada waxay igu kalifeen asagoo madaxweynihii dhammaan oo dalku maxkamaddii u sarreysay ah oo noo yeerayo codsaday inaan u nimaadno oo na waraysto baa waraysigii askartii waxaan ugu diray 3 nin haday madaxtooye joogan iyo haday boolis ahaayeenba si aan madaxweynaha xogta aan loo helin aan madaxweynaha loo gudbin ayaga haduu yeero akhbaartii gudoomiyaasha baarlamaanku ay u gudbiyeen oo ay dhaheen madaxweyne xamaali baa dabada ku dhooban la yiri Rashiid Madowlow intuu waxay u yiri soo balan ma aan lahayn maxaad u imaan weyday balanta waxa laga cararay inaan runta isu sheegno waa ognay madaxweynuhu waxa dhulku la fululaayay inuu ogaado buu rabay kuwa inay yimaadaan diidanna waxay diidanayeen xogta rasmiga ah ee xamaaligu meesha ka hayaan madaxweynaha inay la wadaagaan jidgooyooyinka handadaadda dhibaatada intaasaan ugu kaleftay ilaa iyo hadda handadaaddu nagu socotaa ma nihin anagu Jubbaland inaan dubinayno ma nihin dad inaan wax ku haysanno maaha dad inaan caayayno waxaana la ku haysto aan culummada Soomaaliyeed oo reer Jubbaland aan ka codsanayno oo qof kasto aqli leh reer Jubbaland aan ka codsanayno oo gudoomiyaasha baarlamaanka aan ka codsanayno oo 75 xildhibaan oo Jubbaland aan ka codsanayno oo wasiirada Jubbaland aan ka codsanayno oo cid kasta oo aqliga saaxiib aan ka codsanayno waxaana la ku haysta iyo dhibaatadana haysata iyo wax yaga la qayminaya inay arkaan